haweenweynaha gobolka Togdheer ayaa mudaharaad salmiye ka dhigay magaalada Burco taasi ay ku diidanayeen hirdil lagula kacay Cawa Cabdirasaaq Maxamed oo lagu geystay magaalada Boorama iyadoo 8 cisho la soo dhaafayna koomo ugu jirtay hirdilkaasi Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor cadaalad xumo ku dhacday iyada jaamacadda Amuud dhigata ayaa la dilay tooriyaal la dhacay ninkii la waa loo qabtayna waa nin gurigiisa jooga waxaanu doonaynaa si dhaqsale in cadaalad loogu mariyo inanta yarna meel dhakhtar lana loo geeyo halkan waxaan isugu soo baxnay Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo lagu dilay Boorama laguna dhiftay midiyo badan oo dhakhtarka taala oo koomo ku jirta Cawa qof maanta aan naf lahayn nafna aan ku jirin meydna aan hayn anada ayaan leenahay Cawa cadaalad hesho madaxweynaha wasiirada inta waxaan leenahay Cawa cadaalad hesho anta yare agoonta halka Boorama lagu dilay 10 tooriyood ku taala manaxaan ku helay ee agoonta maanta 8 iyo 10 cisho ayay koomo ku jirtaa inaantu dhakhtar hesho dawladda waxaan ka codsanayaa mas'uul baa dhalay hadduu maanta xabaal galay oo laga sii jeestay mas'uul buu ahaa ilaahay dartii loo kaco waxaan leenahay Cabdirasaaq cadaalad hesho waxaan isugu soo baxnay Cabdirasaaq Maxamed toor dhibta loo geystay oo nadam qaysaadiya noo dam qaysa inanta yara agoonta ee halka loogu geystay dhibaatada ninkii dilayna gurigoodii joogo waa yara agoona dalka waxba looga qaban maayaa la yiri madaxweynaha waxaan leenahay si sharaf loogu codsanaynaa inuu hawsha farageliyo saa ugu dhaqsaha badan leh Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo lagu tooriyay magaalada Boorama ayadoo waxa la waxay garabsatay jirin oo dhigata jaamacadda Boorama ay u harsan tahay hal sano halkaas ay 3 sano dhiganaysay tahay wixii dalka u soo baxayay tahay dalka dadkii maxaan dhahay wuxuu qaban lahaa inanta yar oo aan la siinin cadaaladeedii oo lagu mariyo cadaaladda Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor wasiiradii inanta yar ee agoonta ee lagu tacadiyay waxaanu ka codsanaynaa inta madaxweynuhu ugu horeeyo ee wasiir kale madaxweyne ku xigeen kale ee aqalkiisa madaxweyne ku xigeenka aqalkiisa lagu dilay inay wax nooga qabtaan annagu waxaanu codsanaynaa cadaalad waxaanu ka codsanaynaa dawladda Cawa Cabdirasaaq inanta yar la dilay inanta yar aan ninkii wax yeelay aan la keenin cadaalad horteeda cadaalad ha hesho waxaan halkan ka cabaaraynaa Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo dil loogu geystay magaalada Boorama dilkaas oo 10 toore oo jirkeeda ku yaala maanta ku 8 iyo 10 cisho ayay dhakhtarka taala wax laga qabtayna ma jiraan waxa weeyaan Cawa cadaalad ha hesho Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badda cas